بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وروريا suuba meel kasta oo aad joogtaan daawadayaal ku soo dhowaada barnaamijka maxaa cusub oo adahan oo kale aad uga barateen barteena barnaamijka waxaan diradda ku saari doonaa isla markaana aanu ku eegi doonaa wararkii ugu dambeeyay dunida kubadda cagta caalamkan iyo wixii laga yiri aan ku soo qaadan doonaa sheekooyinkii ugu waaweynaa kulamadii laga ciyaaray Premier League aan dul mari doonaa kuwa caawa laga ciyaarayo nadiga kubadda cagta Liverpool iyo waliba Manchester United Clasico England Barcelona oo ciyaari doonta Malakiinta Real Madrid ayaan ka hadli doonaa Messi habeenkii mucjisada u dhigay Kylian Mbappe intuu waan ka hadli doonaa kuwa iyo kuwa kale barnaamijka maxaa cusub ayaad uga bogan doontaan kulanti wanaagsan khiyaarteena meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka maxaa cusub haddii aad nagu cusubtaa daawada fadlan subscribe noo saar sii share gare saaxiibadiina la wadaaga dhammaantiinba like nagu dhiirigeliya aad baad ugu mahadsantihiin si aad ugu xirantihiin barteena barnaamijku waxaa sponsor gareeyay shabakada wararka ciyaaraha ee kooxda.com oo kamid ah kuwa lagu akhriska badan yahay iyo waliba taa dukaanka smartphone-ada lagu iibiyo ee Zag Smartphones Nairobi Kenya aanu ku bilownay intaan bilaabin waxaan ka cudur daaranayaa codkaygu oo aan markaasi sidii loogu talagalay ama sidii caadiga ahayd idin soo gaarayay sabab ku aadan codkayga xiran qabow daran oo aan dareemayo aawadeed aad u mahadsantihiin aanu ku bilownay kulamadii dhacay haddaan dul marno in badan waan ka soo sheekeen waqti badan ma siin doono ilaa iyo kulan iyo laba mooyaane Manchester City shalayto laba gool iyo waxa Newcastle kaga adkaadeenaysa markaana marbay ku soo dhawaadeen Arsenal ka hor inta aysan Arsenal ka fakan markaasi Aston Villa gool iyo waxa Crystal Palace iyo ku dubteen West Ham 4 gool baa lagu xasuuqay isla markaana habeen David Moyes iska ilmeeyay ay ahayd Brighton baa 4 gool ku jiiday Chelsea ma shaqaystayaashii waaweynaa iyaguna gool iyo waxba ugu dambeyn wadada guulaha bay markaa ku soo roqdeen isla markaana shalay waa guuleystay markaasi nadiga kubadda cagta Wolverhampton gool waxa way kaga adkaatay kooxda kubadda cagta Spurs waa mashaqaystayaal kale marka la rabo iyagu horan loo ordo ay gadaal u ordaan iyagu markaasi nadiga kubadda cagta Southampton gool waxa way nadiga Leicester City kaga adkaatay markaa Getafe iyo waliba Girona waad ogeedeen oo habeenkii xaladooda Girona waa la garaacay Atletico inta ay qabatay ilmihii Xavier ahaa bay nusdarsan u dhiibeen markaasi qaaca laga kiciyay markaa waliba xitaa Samboli kooxdiisa inta laga qabtay ayaa tii ku dhacday waa la ogaa xalaytoole Depay ayaa gool koowaad ka dhaliyay isaga labeeyay waliba xitaa Grezzo ayaa dhaliyay Carrasco iyo Morata oo laba gool ahaa ayaa markaasi lagu kala tagay habeenkii xalaytoole markaa Atletico qaaca bay ka kicisay markaasi Milan waa la garaacay xalaytoole waqtigii hore loo socday iyaguna gadaal bay u socdaa markaa Milan ayaa laba gool iyo gool laga adkaaday Viola iyo koor kufeen horyaalka Bundesliga-hana nadiga kubadda cagta ee Stuttgart laba gool iyo gool baa lagu garaacay Bavaria ayaa garaacday markaasi haddaba kulankii xiisaha badnaa ee aan wada daawanayna wuxuu ahaa kii xiisaha badnaa ee kooxda kubadda cagta ee Nantes kaga hortagtay kooxda kubadda cagta ee PSG xalaytoole wacdara bay dhigeen isla markaana Kylian Mbappe iyo waliba Messi ayaa rikooro waaweyn iyagoo qoray markaasi waliba xitaa Messi ayaa 12 daqiiqo gool dhaliyay goolkaas oo isagu taariikh ku galay markaasi waan ka warrami doonaa gool baa kadibna u raacay Daniel Pereira baa dhaliyay Mbappe ayaana soo xiray daqiiqadii 29aad taasoo taariikh uu ku dhigay ninka cajiibka ee Kylian Mbappe markaasi Mbappe haddii aanu ku hormarno waxa lagu leeyahay taariikh buu isagu dhigayaa wuxuu noqday laacibkan taariikhda ninka ugu goolasha badan kooxda kubadda cagta PSG waa all time baan ka hadlayaa PSG ninka ugu goolasha badan taariikhda ayuu isagu dhigayaa isla markaana rikoorkaas buu gaarayaa xogii ugu dambeeyay waxay tilmaamayaan Kylian Mbappe ninkan isagu marka inuu ku guuleystay koobka dunida uu ku guuleystay laacibka ugu da'da yar marka koobka dunida Golden Boot koobka dunida isagu qaaday UEFA National League isagu ku guuleystay 3 koob de France isagu qaaday 5 La Liga uu ku guuleystay 4 koob oo Golden 4 marka Golden Boot marka liga isagu haysto PSG ninka ugu goolasha badan uu noqday intaas oo dhan baa la qabsaday markaasi waana 24 jir ninka isaguna waa Mexico waa shaqaysanaya unbelievable baan dhihi karnaa 200 iyo waliba 201 gool buu gaaray 247 kulan buu isagu ciyaaray markaa taariikhdaas buu isagu dhigayaa ninka cajiibka ninka waa nin la joojin karin waa lama joojiye caadi ah markaasi isagu taariikh weyn buu dhigayaa mar baa la weydiiyay waxa la yiri niyo maxaad ka leedahay kulanka Bayern mustaqbalkaaga miyuu saameyn karaya wuxuu yiri anigu ma rumaysni wuxuu yiri ani PSG baan ku faraxsanahay halkan baan joogaa kama fakaraya wax kale kaliya inaan ku raaxaysto nolosha PSG buu yiri kubadda ka waran baa kubadda dahabka maalin bay iman doontaa buu yiri maalin bay iyadoo rucleynaysa iman doontaa buu leeyahay كور ريكورد كارتي باليري
wuxuu yidhi horta hadafku ama goolku inuu imanayo waan ogaa anigu wax qurux badan buu yidhi PSG rekoorka inaad ka gaartay markaa kalaab ahaan aad baan horumar u sameeyey buu yidhi anigu waan arrin aad ugu faraxsanahay buu leeyahay cidna ma rumayna maalintii ugu horreysay inaan la yidhaahdo ma rumaysanayn buu yidhi PSG ninka ugu goolasha badan baad noqon doontaa weliba kabtan baad noqon doontaa laakiin haddana wuxuu yidhi waan sameeye taa wuxuu yidhi waan u mahad celinaya dhammaan maamulka kooxda shaqaalaha iyo weliba cid kasta oo PSG ugu caawisay markaasi aad baan ugu faraxsanahay buu leeyahay ima nadiga kubadda cagta PSG wiilkeeda kale Lionel Messi su-aal baa la hordhigay bal waxaa la yidhi ka waran inta uusan ka hadal markaa isagu waxa uu si weyn ugu faraxsan yahay rekoorka isagu gaaray Messi El Mexico ninkaa isagu waa nin tagay lafsadiisu sababtoo ah goolkiisii kumaad ayuu ku lug yeeshay xalaytoole waxaan ka hadlaynaa naadiyada heerka naadiyada keliya waxa uu ku lug yeeshay 1,000 gool baan ka hadlaynaa yacni dunida kubadda cagta Messi haddii uu ka tago uu yidhaahdo anigu kabaheedu waan iska siibay maalinta kubadda cagta Messi isagu meel iska soo dhigo maxaan dhihi doonaa sidee baan kubadda cagta u daawan doonaa markaasi wax cajiibo unbelievable markaasi ah Messi ayaa 701 gool isagu dhaliyey 299 goolna waa caawiyey xalaytoole goolkiisii ayaana markaa rekoorkaasi goolkii kumaad ugu lug yeelanayaayo waxaanay ka dhigan tahay 841 isagu inuu gaaro ama 800 gool isagu uu gaaray markaasi Leo Andres Messi Coutinho ninka waa sheeko kale taariikh weyn ayuu isagu ka tegayaa iyo habeena qurux badanoo Leo waa tagay Leo ninka nin shaqaystay oo tagay unbelievable baan dhihi kareynaa markaa ninka kama hadli kareen sheekadiisa inta baan uga gudbaynaa Leo iyo sheekadiisa iyo weliba xitaa mucjisadii uu dhigay isagoo aad ogtay markaasi 5 gool inuu ku lug leeyahay 5 kulan ee markaa liigwanka war haddii aanu aadno boqoradda horyaalka waddanka Ingiriiska ma boqorad kale baa jirta ma waadan adigu xishoonin seeway ma boqod soo Arsenal miyaadan ogeyn in la yidhaahdo horyaalka Ingiriiska iyadoo ay ka talinayso miyaadan ogeyn kuwan waa sheeko kale habeenkii xalaytoole nadiga kubadda cagta ee Gunners Arsenal ayaa 3 gool iyo 2 kaga adkaaday kooxda kubadda cagta FC Bournemouth habeenkii xalaytoole wacdara bay sameeyeen markaa maqribtii ciyaarta soo gashay hal daqiiqo waa loogu shubay markaa dhowr saka ciyaarta markay socotay tan la qabtaa loogu shubay markaas baa la yidhi kuwan caaw waa galbadeen haddana qaybtii dambe waa loo celiyay haddana markaas baa la yidhi bas waay meesha waa lagu kala tegayaa waxay hilmaameen kuwan inay yihiin Gunners hooyada Kambaaga baryahanba Kambaag iyagaa loogu tagaa Premier League wax nool oo kale kuma jiraan war iska ilmaan kuwan kale wax nool oo kale baryahan ma sawaay wax ku dhex jira male kuwan kale laakiin Arsenal waa boqoradda Ingiriiska markaas xilaareedkan ninkii baarti ahaa ayaa furay markaasi accountka sawa holaacagii Soomaa waan ogahay taageero Arsenal dad holaaca dhagtu tagaysa halkan igu soo koogay qadar 15 daqiiqo doornimada sawa holaaca miisku iga saaran yahay marka waa ka Allah noo barakay maalmaha qiimaha badan ee marka ayamul beedka la sooman yahay aanu ka wada faa'iideysano markaas cibaadada aan ku dadaalno marka haddii aan noqono nadiga kubadda cagta Arsenal waxa leeyahay Ben White ayaa goolka labaad u dhaliyay 2-2 ayuu ka dhigay 70 daqiiqo ka waran 6 daqiiqo bay qaadatay labada gool inay ku soo barbareen 64 iyo 70 waa lagu kala baxay marka 97 daqiiqo Nelson oo goolkii labaad isagu caawiyay ayaa dhaliyay Reece Nelson mucjiso ayaa ka dhacday garoonka dhan waa la istaagay ciyaartuna seeriga la yeeriyay waana lagu kala tagay tani waa Arsenal baa la yiri barasho wanaagsan idinku ma garanaysaan maxaa yeelay tani waa Arsenal Chris Sutton oo xalaytoole ka hadlay wuxuu yidhi Arsenal record cajiib oo weliba xitaa saameyn waqti dambe yimid bay markay gaartay weliba guul qaali buu leeyahay weliba xitaa wuxuu ammaanay markaasi xidiga cajiibka ee kooxda gaar ahaan Reece Nelson Arsenal wuxuu yidhi si u dagaalamayso aan wax la heli karin aba markaas incredible buu ku tilmaamay wuxuu leeyahay kuwan waa kuwa tagay oo cajiib oo balaayo ka dhacday markaasi wuxuu leeyahay kuwan ma kuwan baa lagu dhawaa kariya war xusuuso 3-2 xalaytoole ka hor waxay sameeyeen 4-2 isla markaana waxaad ogeedeen 2 gool baa laga hormaray markaa 31 daqiiqo macnaha gool baa la dhaliyay way barbareeyeen haddana gool labaad baa Philippe Coutinho ka dhaliyay way barbareeyeen qaybtii dambe markaas ba haddana aad ogeedeen markaasi gool saddexaad inay ka dhaliyeen Kor Martinelli inta uu soo qaatay markaasi 4 gool bay ugu bedeleen marka lagu leeyahay marka kuwan waa Arsenal hooyada Kambaaga yani waxba lagama qaban karo kuwan waa kuwa tagay macnaha marka lagu leeyahay kuwan waa unbelievable adiga ha ka shakinin waa kuwan waa xilaareedkan in horyaalkan iyagu ay u imanay Emirates shaki lama gelin karo shaki laba ku doodaysa ma jirto xitaa labo ku doodaysa xitaa ma jirto maxaa yeelay kuwan waa shaqaysteen ninka hadduu shaqaystana cidna kama shakin karayso markaasi weliba xitaa markaad fiirisid habeenka xalaytoole su-aal baa la hordhigay war waxaa la yidhi maxaad ka leedahay
dabaaldegaagii iyo maxaa arkay ka warran baa la yidhi adigu wuxuu yidhi anigu waan rumaysanahay kooxda in loo sabro isla markaan wuxuu yidhi waxaan rumaynay inaan guulaysan karno aakhirkiina waxay tajribo noo qurux badan ama tijaabo qurux badan waanu mudnaynahay ilbiriqsiga inaan ku noolaano waa mid ka mid a kuwii ugu wanaagsanaa buu leeyahay dareenkayga lama qiyaasi kara buu yidhi ciyaar waali bay ahayd buu leeyahy ciyaartan tani waa waali buu tilmaamayaa wuxuu leeyahay ciyaartu dareen cajiibaan dareemaynaa isla markaana meel kasta inaan iska boodboodno oo aanu faraxno oo si waali ah loo dabaaldego ayaan dareemaynaa buu leeyahy sidoo kale waxa uu tilmaamayaa inaad ugu faraxsan yahay markaasi taageerayaasha meel kasta inaan iska tago taageerayaasha Arsenal dul wareega baan dareynayay buu leeyahay wuxuu ammaanay xidigihiisii kale waxa uu isagu tilmaamayaa in la soo geliyo ninkii ahaa Smith Rowe isla markaana ciyaarta laga saaro wuxuu yidhi waxaan dareemay buu yidhi inaan u baahana in waxbadan aan sameeyo markaasi sidaas daraaddeed khatar baan doonay inaan abuurno riis baana ahaa marka laacibkii samayn karayay marka wuxuu leeyahay taa baan sameeyay aakhirkiina waan ku guulaysanay ka waran baa la yidhi ninkii ahaa Trosan wuxuu yidhi horta ma garan karay isagu waxa uu isagu yahay laakiin ciyaartu uu sii wadan kari waayey waana habeen cajiib oo aanu qaadanay way leeyihin markaa reer Arsenal waa shaqaysteen Arsenal adigu kama shakin kartid Arsenal anigu waaba kubaddeedu war waa adaa iska mucaarad data xitaa dhadhaa waxa doonto ahaw waxaaba iska jeclaysanaysaa kubaddeedu waxaad leedahay kuwan koobka hala siiyo oo ha guulaysteen oo goolal ha dhaliyeen oo ha raaxaysteen oo ha dabaaldegeen maxaa yeelay kubaddoodu kubad la garaacay waa aragtay sooma war xalay toole inta rekoorey gaartay Arsenal haddaan kuu sheegay dherigaaga ma karayo dherigaaga ma karayo haddaan kuu sheegay ka waran 77 jeer Bobokaska ay ku taabteen Bournemouth waana tiradii ugu badneyd kulan Premier League tan iyo City oo Norwich sidaas ku samaysay 2020kii war 77 jeer Bobokaska ku taabteen baa lagu leeyahay kuwa ka waran adiga 30 shoot baa laga hadlayaa waana tiradii ugu badneyd ayaa laga hadlayaa kulankii madaafiicdii 2017 ay ku tuurayeen waad ogeedeen marka ayaa la soo Ozil iyo waqtigaaba joogeen Arsenal marka tani waa cajiib waliba xitaa 2012 rekoorkii ahaa in laba ay ka soo noqdaan 5 ugu bedelaan ayay markii ugu horeysay 2 gool ka badan ay ka soo noqonayaan been tan iyo 2012 maxaa dhow marka Arsenal waa tagtay sheekh Arsenal shan wariyo kaaga tagin hambalyo Gunners Arsenal oo wiilal shaqaysanaya haddaba warkii kale dunida kubadda cagta waa hal iyo laba ka dhigi doonaa Galtier waxa uu sheegay inuu ka walaalsan yahay kooxda kubadda cagta PSG difaaceeda ninka lagu magacaabo Mukuli iyo waliba xitaa Marquinhos oo la tilmaamay xogaa mushkilada isagu inuu qabo lama garanayo ciyaarta Allianz Arena ee toddobaadka la ciyaari doonay koobka UEFA Champions League inuu ciyaari karayo iyo in kale waan arki doonaa Erik ten Hag ayaa isagoo ku faanay xal inuu u keenay kooxda kubadda cagta Manchester United iyo mushkiladeedii labadii bilood ee ugu horeysay Manchester United isagu maamulay waxa uu ka bixiyay baa la yiri gawaari miinaysan iyo waliba miinooyin lagu aasay qolka labiska xidigu isu xanaaqsan fawda ka jirta wax badan buu xaliyay waliba xitaa waxa leeyahay Manchester United waxa ku diray ninkii Van Gaal ahaa wuxuu yiri waryahow odayo tilaaanta ha isku tagin halkaas meel dhib badan waay kuwa qataatu giri marka ninku waxa waaye United aad buu maragtay isagu ugu diray laakiin indhayga ama nin aad u madax adag waa ninka la yiraahdaa indhayga ku soo ay macalin buu leeyahay anigu indhayga ayaa ii macalina saas buu isagu ka hadlay marka Ronaldo ka diritaankiisa kooxda iyo in la nadiifiyo miinooyinkii kooxda ku aasnaa waxay ahayd mid kamid ah waliba xitaa ma sahlin baa la yiri ninka nambarka 7 isagu kooxda in laga diro Sir James Ratcliffe iyo waliba ninkii sheekha kale ee Qatar Sheikh Jassim waxa leeyahay waxay la fariisanayaan maamulka isla markaana waxay kala hadli doonaan xaaladda kooxda waliba xitaa waxa leeyahay iyagu rajabeel bay ka dareemayaan fawdo hadda maamulka reer Glazer iyagu way wadaan kulan labaad bay dalbanayaan iyo waliba xitaa hadallo kale oo marxaladda labaad ee iibinta Manchester United laga hadli doono markaa Danny Murphy waxa uu isagu qabaa in difaac ugu fiican uu isagu yahay ninka lagu magacaabo Virgil van Dijk isla markaana wuxuu leeyahay isaga iyo Varane xiddi ka fiican ma jiro weeriyaan kasta wuxuu doonayaa wax badan inuu sameeyo waliba Rashford imtixaan baa u yaala caawo haddaba waxa leeyahay nadiif kubadda cagta ee markaasi iyadu marka Manchester United iyo Liverpool waan arki doonaa garsoorayaashu waxay hadda ku dadaalayaan baa la yiri in iyagu markaas daqiiqado badan ay ku daraan kulamada ilaa 24 daqiiqo la gaarsiiyo waqtiga dheeriga ciyaaraha lagu darayo waan arki doonaa haddii aanu ka hadalno kulanka xisaab badan caawa Manchester United iyo waliba markaas Liverpool ay ciyaari doonaan wuxuu noqon doonaa kulan cajiib oo Daily Mail ayaa waxay ku waramaysaa difaaca kooxda Manchester United Rafael Varane isagu tijaabo ku aadan awoodis jiraaneed in la marsiinayo haddii 100% maanta isagu diyaar u noqon karayo aroornimada axad oo maanta ayaa la marsiin doonaa ninkan haddii uu ciyaari karayo iyo haddii kale waan arki doonaa haddaba David De Gea ayaa isagu ku sheegaya kulankan inuu yahay mid adag
wuxuu tilmaamayaa in aysan sahlanayn wuxuu yidhi aad bay u adagtahay markaas isagoo sidoo kale tilmaamaya nadiga kubadda cagta ee Manchester United in kulankan ay ku dadaali doonto kalsoonidooda inay haystaan isla markaana ay guulaystaan wixii aan lugtii hore soo samaynay ayaan doonayna hadda inaan samayno buu leeyahay ciyaar qurux badan bay noqon doontaa sida kelmaddu macna u leedahay buu tilmaamayaa haddaba haddii aanu sii wadno Manchester United iyo weliba markaas Liverpool Man United wax markaas Liverpool oo kale wax dhibaato ma qabto marka laga tago xidigihii hore aad u ogeydeen Arthur Melo xidiga Thiago Alcantara Luis Diaz Joe Gomez intuu way ka maqnaan doonaan Jota iyo Van Dijk iyo Salah iyo ciyaari doonaan halka Lucas Shaw la qiimeyn doona haddii uu ciyaari karayo kulankan sidoo kale Varane baa la qiimeyn doonaa Jadon Sancho ayaa isaguna Janis heli karaya kadib markii kulankii hore uu ku seega dhaawac Van de Beek Christian Eriksen Antonio Martial iyo kuwa kalena way seegi doonaa marka la eego kulanka nadiga kubadda cagta Liverpool wiilkeeda Salah 10 gool buu ka dhaliyay kooxda kubadda cagta Manchester United dhammaan tartamadooda ay ku jiraan 9 ka mid shantii kulan ee ugu dambeysay goolasha uu ka dhaliyay ma sahlanay markaasi waliba xitaa Liverpool 3 kulan bay guuleystay 4tii kulan ugu dambeeyay Premier League hore waxay ugu fashilmeen 4tii kulan ugu horeysay sanadka 2023 Redis ayaa guul daro la'aan shantii kulan ee markaas xiriir iyagu waxay noqon doontaa markaas rikoor kale macnaha 5 kulan oo xiriir ay noqon doontaa markii ugu horeysay xiliyaareedka marka iyagu 4 kulan bay hadda markaas guul daro la'aan yihiin hadday ku darsan rikoor bay sameyn doonaan waxay noqon doontaa markii ugu horeysay xiliyaareedka markaasi Cliched 4 bay iyagu qaateen baa lagu leeyahay waana markii ugu horeysay 10 Abriil markaasi iyagu rikoorka ay sameynayaan waliba xitaa 27 dhibic bay qaateen 12 kulan banaanka ay ku soo ciyaareen marka la eego waliba xitaa Oxono Van Dijk 20 gool buu dhaliyay tan iyo Manchester kooxda Liverpool 2015 waliba xitaa Salah Oxono gool buu u jiray inuu barbareeyay rikoorkii Robbie Fowler Salah 20 gool buu isagu dhaliyay ugu yaraan dhammaan tartamadooda baa laga hadlayaa 6 xilaareed ee ugu dambeysay waliba xitaa Jota ay ku fashilmay kulamo xiriir kooxda Liverpool Man United ayaa kulan kaliya guul dareystay iyaduna 12 kulan markaas Premier League ay ciyaareen kulankii guul dareystay waxa Arsenal bishii January 8 guuleystay labana barbaro baa laga hadlay midna guul darro marka la eego nadiga kubadda cagta United 23 dhibic bay ku heleen tan iyo koobka dunida iyagu waa boqorada waana kooxda ugu badan ee guuleysatay marka la eego Yurub oo dhanba markaas lagama gaaro waxa laga hadlayaa 50 dhibic inay ku helaan 25 kulan oo Premier League waa markoodii 20 iyo iscasilaadii Sir Alex Ferguson kooxda uu ka tagay waqtigii markaasi ninkii marka Jose Mourinho ahaa ayagu markaasi 53 dhibic heleen 2017 kaalinta labaad bayna ku dhameysteen United ayaa lagu leeyahay iyagu waxay guuleysteen 6 ka mid 12 kulan banaanka ay ku soo ciyaareen isla markaana oo dogeeday xiliyaareedkii hore waa tirada ugu badneyd marka ay sameeyeen halka nadiga kubadda cagta ee Liverpool caawa la ciyaari doon Rashford oo kale oo nin sahlan maaha kulamo xiriir buu goolnay waliba xitaa Liverpool aad buu u jecel yahay markaasi caawa waxaan arki doonaa ciyaartooda 7 iyo qadarka 7 iyo 30 daqiiqo fiidnimada ay soo gali doontaa ciyaarta 12 maqribnimo laakiin Barcelona baa soo gali doonta 12 iyo rubi soo gali doonta Real Madridna 12 habeenimo Roma iyo Juventus 12 oo la rubuc bay noqonaysaa guud ahaan barnaamijkeena maxaa cusub naga tahay tan kulmi doon barnaamijka mid lamid salaam